xaflad lagu maamuusay laguna soo dhaweynayay magacaabista barasaabka cusub ee gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi Xamse Cadow Yurur ayaa lagu qabtay hotel Ramad ee magaalada Burco munaasabadan lagu sagootinayay barasaabka cusub ee gobolka Gabiley ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheerka degmada Burco wasiir dawlaha wasaaradda xanaanada xoolaha cuqaal iyo waliba marti sharaf kala duwan ugu horeynba waxa munaasabadaasi ka hadlay cuqaal iyo marti sharaf kala duwan waxaanay dhammaantood soo dhaweeyeen barasaabka cusub ee gobolka Gabiley waxaanay tilmaameen inuu barasaabka cusub ee gobolka Gabiley Masar Xamse Cadow Yurur uu ahaa shakhsiyaad ku suntan horumarka gobolka Togdheer mudnaan waxa leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siiraayo oo loo soo magacaabay barasaabka cusub ee Xamse Cabdi Axmed una magacaabay gobolka Gabiley waxaan leeyahay ilaahay xilka ha ku asturo reer Gabileyna waxaan ugu bushaaraynayaa waa laydin soo xulay madaxweynaha qaranka wuu idin soo xulay karti buu leeyahay deganaanshu leeyahay waa nin islaam ah oo dhalinyaro ah المنطقة وحويا واحد ضمن عامي روتي طبعا كذا دولة Somaliland واسكو ضد ولا ضلكو تطكن شو واسكو ولا ضلكا إلى هذا عطتو روتي والقرن يا وما نقول مسؤول عندنا والله ضداميا إلى تصير ولا تجمع أو تجناشين كشلان أو مسؤولين أو كشلتو وهذا كذا شو بتبادلوا أو لا شو بدي يسوي إلى دولة أطاق وشرايسو أيام يقابل هاي العقوف والغيو كان يقابل حول العدالة وما تعرفش غير كده العدالة صميصو أنا صاحب تلمو ينجح رئيسي وحط ما كوش غيره وبراز دار من العدالة تطلق تيرا حمزة عبد يورور ما أنت تدعو يسقط بقول بعدين ولما تذكر قبلي حقيقة وضد لنا نولان كرو ولا شقين كرو ولا شقيسن كرو وحولي بكاه الرجال تجاه شيء اليوم waxaana sheegin ninka iran dhalinyarada saaxiibka gaarka u nahay maayarka degmada Gabiley oo isaguna ka horeeya oo nin yar hadana weyna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh munaasabadan waa sababtii hamariyo aan soo koobayna waxaan soo nugulaynaa u dacayno gudoomiyaha gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi وتبقى لنا واحد قبل إن الحكاية إلى هاي الفضية وقاصنا ولا اسمه وصاري إلى هاي الفضية حمسين وسيد عينا مركب ورد على جوزنا مرلبات وحروها بلينا مدحونها شمرين الصوماليين أحمد محمود هذا ويصبوا قرتي حمسين وحلك لهم يعاوا هذا ما يقول كتبنا يروح الله مدحونه هذا يابا وكاله ما هذا غناتا إلى حمسين حلك لهم يعاوا وحفلة دعائية دردارنا عصيرا حفلة دلوة دعائية دردارنا أيضا حمسة وندعو عينا كلنا دردار مني واحد إلهي وقبرنا إلهي حلقها وفضائيه حل يرماها أنا لفتي مركي الله مقعاوي وحقا قوضا يوجروا اسمع هاي برساب كسلان وصل بلاري لكن سيدو هذا هربا شيغاي عالم هو meelaha jaranjarada laga fuulo siyaasadda hadiyo jeer gofona riskuna waxay ku dambeeyaan madaxweyne Xamse oo hawda imanaan insha Allah biidnillah waxaan halkan ka xusayaa abaarba meesha deegankeen la geeyay abaarba ka jirto xoogle abaartaas dawlad iyo international community waxa ay ka geysteen biyo waa la geeyay wax fara badan baa la geeyay laakiin waxa jira wax gobolkan uu hodan ku yahay maadaama Xamse gobolkan ka tagayo gobol uu tagay abaare hayso waxyaabaha ay hodanka ku nahay qayb kamida inaynu raacino weeye Xamse waxaan kaga dhawaaqayaa oo ay iska kaashanaynaa gobolkan Togdheer wuxuu cawska oo maanta baahida ugu badan ee ka jirta gobolka Gabiley ama bari ama galbeedkaba waxa ka jirta abaar biyo iyo baad baa loo baahan biyo waa la geeyay inaguna baadkii baynu geenaynaa 100 baabuur oo cawsa ayaynu geenaynaa ku galbeynaa
barasaabka cusub ee gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi Xamse Cadow Yurure oo isaguna dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa hadaladiisii waxa kamid ahaa sida tan laba qodob oo kaliya ayaan jecelahay inaan ka dhawaajiyo labada qodob oo kala ah mid waa mahadnaq Soomaalidu waxay tiraahdaa hoosba hadal leh maanta aniga hadalka waxa iigu jira halkan waa labada qodob qodobka koowaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Aadan Siilaanyo xilka uu igmaday magacaabay aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa salaana waan idinka sidaa marka labaad dadweynaha sharafta leh waxaan aad iyo aad uga codsanayaa gobolka la ii magacaabay waqti xaadirkan waxa ka jira iyo gobollo kale oo dalkaaba abaaro ayaa ka jira aniga oo fursadan ka faa'iideysanaya dadweynihiina sharafta leh waxaan aad iyo aad uga codsanayaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aad uga baridaan inuu abaarta ka soo jabiyo gobolka waxaan kale oo aan idinka codsanayaa in aad igu soo ducaysaan in Ilaahay xilka igu asturo wasiir dawlaha wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdirashiid Reeraaco isaguna halkaasi ka hadlay waxaana hadaladiisii kamid ahaa sida tan waxa mudan runtii madaxweynaha magacaabay barasaabka gobolka Togdheer sida uu daba socdo dhammaan aan loo kala hadin waxaan leenahay madaxweyne kuma seegin gobolka Togdheer ninkii loo maaraha ka magacaawday ugu dambeyntii munaasabadani lagu maamuusay laguna soo dhaweynayay magacaabista barasaabka cusub ee gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi ayaa ahayd madal si weyn u kulmisay bulshada qaybaheeda kala duwan waa Maxamed Ibrahim Xasan Maxamed British shabakada caalamiga Harunag News Bro